غزوة بدر isagoo nabi maxamed dagaal ku jira oo dad yar haysta dhowr boqol saddex boqol iyo waxoogaa la joogaan oo ciidamo aad uga tiro badan ay iswaajahayaan kun nin oo fardo badan wata oo saxaabadana faras ama laba joogaan wax kale aan la haysanin yani laba ciidan oo isu dhigma aan ahayn iyo xadiidka muslim waxaa soo hijrooday xudayfa iyo aabihii xudayfa bnu lyamaan iyo aabihii iyo musaafiriina soo baxay dabeetana quraysh baa qabatay ciidankii quraysheed baa qabtay xaggaa ku socotaan bay waxay idhaaheen madiina waxaa la yidhi inaydan ciidanka maxamed ku soconin ballan maqaadisa baa kuma soconno bay idhaaheen madiinaanu qabanaynaa waxaa lagu soo daayey bishard inaanay nebi maxamed la soo dagaalgelin dabeetana way soo baxeen nebiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam oo ciidan yar haysta waa maalintuu nebigu ilaahay baryay u lahaa ilaahow casaa kooxdan yar haddaad halaagto dunida dib laguugu caabudi maayo ducadii nebi maxamed bay ka mid tahay markuu ilaahay baryayey ilaahu intani hadday maanta dhimato yacni diintani waa iga dabar go-aysaa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam rag maalintaasuu u baahanaa isagoo sidaa rag ugu baahan buu xudayfa u yimi iyo aabihii wada socda waa idhaa ilaahay rasuulkiisiiyo quraysh baana qabatay laakiin quraysh waxaanu gallay ballana ah inaanu madiine ku soconno aanan adiga kuu imanaynin kula dagaalgelaynin maxaanu yaallaa wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam insarifa iska socda nafii lahum bicahdihim wanastaciinu allaha calayh iyagana ballankoodaan u oofinayaa buu nebigu yidhi ilaahayna waan kaalmaysanayaa haddaa ballan gasheen qabta magaaladiinni madiine qabta waa sababta baa la yidhaha xudayfa bnulyamaan dagaalkii badar aan uga qayb gelin isagii aabihii toona saasay iyagu madiine ku aadeen oo dagaalkii badar aanay ka qayb gelin sababtu waa maxay isagoo nebi maxamed raba inaan la odhanin qof muslima ballan uu galay buriyey qof muslima ayaa ballan uu galay buriyey si aan loo odhanin saxaabadu siday ballan uga dadaalayeen iyo waxay ku yabohaan أبي بكر ما أنتم مدحنا نقضي بوحي يدي أنتوا يستاجي وريا النبي محمد وحب بلن قاضي أو كجير يودي أنت أنا بلن كوفين جابر بن عبد الله يستاجي يدارجه حاله بلن قاضي ويرد حوله بحرين مركي يمادان صدح جرب النبي وعين كايد وان كودر يا كودر يا كودر يا قال يبو كيري وأودر مركو أودر يبو وشبي تري بويري ولا تري صدح داد قاضي بويري مركا بلنكي نبي محمد بن فلين نبولي وعد قصي أبو هي نبي عليه الصلاة والسلام أو يري مركا حولها بحريني ما دامبان وحكسين إياه أيها أبي بكر وحد ديدين هي إن أنا محي بلنوا النبي محمد قال عليه الصلاة والسلام أنا بورنين إذا بلمضوا وحي هاي دين الإسلامي قال وحكو أذك ما أنت نلوشين أنا وحكو فضوط أما هالنقطة عهود إنه إلهي لقى لي ودد بدني أكتود أنا أهمية بورم كلهين يهدو دنيرو مادي أركو وكبحيو وحتى كسيدرا وحين بلن لحدين قال لي هالنقطة قبائل كبلن كي قالان صلادين تبلن كي قادان عقاش بلن كي قادان الريرك لا قالان سياسيين تبلن كي قالان شقاله بلن كي قالان وحنور دمي وعهود إلهي خلقي سلا لقليه وحاسو عهدي الدين هان مركاد يستري أد أقبل الشيء بيواجب قوة النقدين انتو الدونا بهالليكادو فلن لأنت دو مركا ووحى إلهي سبحانه وتعالى قرآن كإن بدن وقلت الماميو إن مال حن أي قفك اللي قارس معكو سوكو بيا مركا نبي عليه الصلاة والسلام حديث كأنه قبل وني وأنس بن مالك لي خطبتها النبي وحا كم دها نوم خطبتها النبي يقول لي إلا أيه ويرداس كشرتيا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له إيمان ماله قف كان أمانة لهيني دين ماله
قف كان عهدي يبلنك وقال فلين نبو نبو تلمامي عليه الصلاة والسلام إلهي وحن كبر يا إيدك يا نجبين وكردقو كوي وحي شيغا ينكرون شيغا بلنك يا الله قالين يا رسول كيسينا أوفية خلقك كي لقلنا أوفية صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.